anigoo ah Imaan Maxamed Yuusuf Cali maanta waxaan ka hadlayaa gobolka Shabeellada Dhexe dhibaatada ka taagan oo ah hadii la yiraahdo fatahaada biyaha oo webigana ku soo fatahay cirkana roob ugu yimid ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in gurmad loo sameeyo gobolka Shabeellada Dhexe taasoo ah يعني dad masaakiin ha degan meel ay ka baxaan ma helaan waxa wax lagu gaarsiiyo dooman hadaan loo helin diyaarado wax u shubo waa dadkaas waa baaba'ayaan intaasoo malaayiin waayay waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada waxaan ka codsanayaa in gobolka Shabeellada Dhexe ilgaara lagu fiiriyo shalay iyo maanta qolada baarlamaanka ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe waa ka shiraayeen saakay gudoomiyaha gobolka West Shabeellada Dhexe waa ka wada hadalnay midda kale qolada ganacsatada ah oo Ilaahay wax siiyay iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed inta ku abtirsata gobolka Shabeellada Dhexe iyo intaan ku abtirsanba in dadkaas masaakiinta la soo gaaro wixii ay hadii la yiraahdo maanta ay ku badbaadi lahaayeen midda lamaad anigoo ka faa'iideysay munaasabadan halkan إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحن تحسينا يا ولالكينا حلبان عمر إسلام وتحسينا إنا ما أنت كوجيريود حركة الاستيل ليسوا شيء نيروبي بقول كيسيانا هاي محاجر لينها وياه هرابه هو ابن جلود واي واحترم يسوع قبيل واحترم ماي وحن لها كتاب كيسي لنا عم يدكت الله كسيو جنة الفردوس الله كوارابيو انت او كتغنا سمر ايمان الله كسيو